Assalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijkii dabagalka wararka. Barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay inuu badanaa ka dambeeyo wararka aan idiin soo gudbino maalin kasta. Fadlan haddaad kanaalka ku cusub tahay subscribe-taadu waa noo muhiim. Qodobada wararkeenana waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kuna la qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Imaaraadka Carabta. Diyaargarowga xooggan ee gobolada dhan ka socda ee maalinta 1 Julaay. Shidaal la'aan baahan oo ka taagan magaalada Muqdisho. Iyo Shiinaha oo wacd ku maray inuu cagta marin doono Taiwan. Xiriirka kubadda cagta ee dowladda Soomaaliya oo dhaleecayn aad u weyn loo jeediyay kadib fadeexadihii koobkii ka dhacay Carabta. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulan muhiim ah la qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Imaaraadka Carabta. Madaxweynaha ayaa jaaliyadda uga warbixiyay kulankii uu la qaatay madaxda dowladda Imaaraadka Carabta. Madaxweynaha ayaa aad niyadda ugu dhisay shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Imaaraadka Carabta inay heli doonaan waxyaabo badan oo u fududeeya nolosha waddankan. Madaxweynaha ayaa sidoo kale ugu bishaareeyay in la soo celin doono ganacsigii ka dhaxeeyay dowladda Imaaraadka Carabta iyo dowladda Soomaaliya. Waxaa la fududeyn doonaa alaabaha laga diro dowladda Imaaraadka Carabta loona diro dowladda Soomaaliya. Sidoo kale waxaa alaabaha dhoofka xoolaha nool iyo badeecadaha loo soo dhoofin doonaa dowladda Imaaraadka Carabta. Sidoo kale jaaliyadda ayaa madaxweynaha uga warbixisay tallaabooyinkii iyo guulihii ay ka gaareen waddankan. Soomaaliya iyo Imaaraadka ayaa usbuucan soo celiyay xiriirkoodii oo muddo dhan ku jiray gabaabsi. Waxaa caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho iyo gebi ahaanba dalka dhan laga dareemayaa labada maalin ee xorriyadda Soomaaliya 26 Juun iyo 1 Julaay. Shacab badan ayaa aad u diyaar garoobaya. Maamulada Soomaaliyeed ee Puntland, Galmudug, Hirshabelle, South West State iyo gobolka Banaadir ayaa aad isugu diyaarinaya qabanqaabada maalintan. Maalmahan xorriyadda ayaa aad ugu muhiimsan shacabka Soomaaliyeed. Haatan lagu jiro diyaargarowgii ugu dambeeyay. Shacabka magaalada Muqdisho ayaa wajahaya dhibaatooyin uga imaanaya shidaal la'aan iyo shidaalka kor u kacay. Shacabka magaalada Muqdisho ayaa waxaa iskugu darsantay laba dhibaato oo ah shidaalkii uu ku yar yahay waddanka dhan iyo in shidaalkii uu kor u kacay. Shidaalka loo yaqaano dieselka ayaa aad ugu yar magaalada Muqdisho. Saameyntan ayaa ka timid dagaaladii ka dhacay Ruushka iyo Ukraine. Sidoo kale maamulada Somaliland, Puntland iyo maamulada kale ayaa laga soo sheegayaa shidaal yaraan aad u baahan. Xiriirka kubadda cagta ee Soomaaliyeed ayaa aad loogu dhaliilay qaabka ay u xuleen dhalinyartii uga qayb gashay koobka Arab Futsal. Soomaaliya ayaa kala kulantay fadeexad aad u weyn kadib markii kulano looga badiyay 16-9-8. Soomaaliya ayaanba wax ka soo hoyin wax guul ah. Sidoo kale dadka Soomaaliyeed ayaa aad u dhaleecaynaya qaabkii loo xulay ciyaartoydii ka qayb gashay koobkaasi. Dadka qaar ayaa waxay leeyihiin qaab isku dhaf ah looma xulin oo waxaa ciyaalkan laga soo xulay hal degmo oo ku taala magaalada Muqdisho. Xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed ayaa wajahaya ceebtii ugu weyneed. Dhagaystayaal, haatanna dhankaas iyo Shiinaha. Dowladda Shiinaha ayaa wada maalmahan dhaqdhaqaaq ka dhan ah dowladda Taiwan. Taiwan ayaa isku tilmaamtay inay tahay dowlad gooni goosad ah. Dowladda China ay aaminsan tahay One China One Policy oo ah hal waddan China iyo hal policy ah. Sidoo kale dowladda China ayaa ku dhawaaqday inaysan ka yeeli doonin Taiwan inay gooni goosad samaysato kana goyso dhulka weyn ee China. China ayaa usbuucyadii lasoo dhaafay waday dhaqdhaqaaq ka dhan ah waddanka Taiwan. Diyaaradaha cirka ee China ayaa u galay hawada Taiwan muddo ku dhow hal usbuuc ah. Diyaaradaha hawada galay ayaa lagu qiyaasay 57 diyaaradood. Dowladda China ayaa aad looga baqsan yahay dhaqdhaqaaqan ee wado oo reer galbeedku ay ku hayaan isha. Dowladda Mareykanka ayaa uga digtay dowladda China hadday qaado wax tilaabo ah oo ka dhan ah Taiwan inay faraha la soo geli doonto dagaalka. China ayaanan u joojin doonin. Madaxweynaha China Xi Jinping
ayaa sheegay inay dowladda China ay ku soo celin doonto khasab Taiwan inta ay nool yihiin ay ka saaran tahay mas'uuliyad aad u weyn in la ilaaliyo midnimada waddanka China. Dhageystayaal, waa naga intaas dabagalkii wararka. Fadlan haddaad kanaalkeena ku cusub tahay, subscribe noo saar si ay noogu noqoto dhiirigelin. Mahadsanid.